السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين عبد القني أحمد كسو دواذا مانتا موضوع عصب مانتا وحان كهدلينا تاريخ هالييغا باكستان أسمي نيوكليركا عبد القادر خان دكتور عبد القادر خان وحو كل شيء مقالة قديمة دالك إنديا بوبال سنة كي يكون سقال بقل صدني اللحظي وأن حلي أي باكستان إيو إنديا أي سن كالقوين أو إنجريز كالقميسانيي وأن مسلم كنا حال دير فيزيكس كالنيوكليركا وحانا لو تريا إنو يهي آبها النيوكليركا باكستان ما دام أو يهي روحي كوات كشقايو إن لهلو بمكي كوات أو نيوكلير أو أي باكستان ليدحي آبيه سوحوها عبد الغفور خان معلن أساقو كفريستي شقada macallinimo 1935 hooyadiisa waxay ku hadli jirtay luuqadaha urduuga iyo farisiga Cabdulqaadir Khan waxa uu dugsiga sare kaga baxay magaalada Bhopal ee India kadibna wuxuu kaligiis u haajiray dalka Pakistan 1952 1960kii wuxuu jaamacadda Karachi ka dhameeyay kulliyadda cilmiga wuxuu intaas kadib ka shaqeeyay shaqo dawladeed shaqadaas uu isaga tagay wuxuuna u dhoofay dibadda si uu u dhamaystirto waxbarashadiisa asagoo ku biiray jaamacadda Berlin ee tiknoolajiyadda wuxuu qaatay tababar 2 sano oo dhanka culuumta macaadinta ah wuxuu guursaday gabar ka soo jeeda Afrika oo ay Jarmalka isku barteen 1967 wuxuu shahaadada masterka ka qaatay jaamacad ku taala dalka Holland wuxuu intaas kadib codsi shaqo ah u dirsaday warshadda biraha ee ku taala Pakistan balse codsigiisa waa la diiday khibrad yari awgeed 1972 wuxuu shahaadada PhD ka qaatay jaamacadda Leuven ee ku taala Belgiumka ugu dambeyn waxaa fursad shaqo u soo bandhigtay shirkadda engineering-ka FDO ee Holland FDO waxay xiriir qoto dheer la lahayd shirkad arrimaha nuclear-ka ka shaqeysa Cabdulqaadir Khan wuxuu u shaqo bilaabay FDO iyadoo daneynaysa bacriminta uranium-ta gaar ahaan barnaamij si sir ah loogu horumariyo qunbuladaha nuclear-ka 1974 waxay India qarxisay hubkeedii koowaad oo nuclear ah Cabdulqaadir Khan wuxuu isla markii u walwalay dalkiisa Pakistan oo uu India dagaal kala dhaxeeyo ilaa haatan wuxuu durba fariin u diray ra'iisul wasaarihii Pakistan ee xilligaas Dulqafaar Ali Bhutto waxayna fariintiisa ahayd sida tan si ay ugu suurto gasho Pakistan dawlad madax bannaan inay noqoto waxaa waajib ku ah inay samaysato nuclear Cabdulqaadir Khan markan wuxuu ka mid ahaa culimada ugu waaweyn ee majaalkan wuxuuna awood u lahaa inuu meelo badan oo sir ah galo isagoo kaashanaya shirkadda uu la shaqeynayay ee arrimaha nuclear-ka ka shaqeysa dawladda Holland ayaa Cabdulqaadir Khan uga shakisay inuu yahay nin sirdoon ah oo dawladda Pakistan la wadaagay xogo xasaasi ah balse kuma aysan helin wax caddayn ah 1975 wuxuu go'aansaday inuu si kadis ah uga dhoofo dalka Holland isla markaana uu ku difaaco dalkiisa aqoonta uu leeyahay wuxuuna Pakistan ka degay 1976 wuxuu sameeyay shaybaar arrimaha nuclear-ka ee ku yaala magaalada Kohota oo 1981 isaga loogu magac daray wuxuuna aqoontiisa ku talaalay aqoonyahana kale oo reer Pakistan ah 1998 waxay Pakistan shaacisay inay tahay awood nuclear kadib markii ay sameysay 5 tijaabo